waa mar kale iyo masaajid cusub oo hadda farta laga qaaday qaybaha suuliga waa sidan oo hadda sidaan ayay u egyihiin laakiin aniga haddii aan nahay kambaniga deegaan dhowr waxaan rabnaa in aan nadiif ka dhigno jaranjaradana sidoo kale hadda waa sidaan gudaha masjidka marka aad soo gasho sidaan ayuu u egyahay oo waxaa kaaga muuqanayo dhismihii oo toos ah qaybta weysada ayadana sidoo kale oo ma ahan meel bilic leh laakiin sida aan ka dhigno iyo sida ay ku soo baxdo waan ku tusayaa maasha allah qaybta weysada ayaan kaaga bilaabay oo sidaan ayaa laga dhigay kambaniga deegaan dhowr ayaana sidaan u nadiifisay waaw asxaabteeda masaajid kasta wuxuu mudan yahay in si wanaagsan loo daryeelo qaybta suuliga haddaa aadan tusaaya rasaltigeeda sidaan ayaa laga dhigay oo sidii hore iyo hadda farqi weyn ayaa u dhexeeyo jaranjaradina waa tanaa waa nadiif deegaan dhowr waxay u heelan tahay in masaajidda ay ka dhigto kuwo nadiif ah masjidka waa hooyga cibaadada deegaan dhowr waxay hubisaa inuu haddii jeer uu yahay nadiif haddii aad u baahan tahay masaajidka xaafadaada inuu noqdo mid nadiif ah uguna caraf badan masaajidada si degdega u saawac kuna wargeli in ay jirto shirkadda deegaan dhowr si ay kugu nadiifiso masaajidkaas meheradahaaga iyo meel walba oo aad ganacsi aad leedahay iyo gurigaaga kambaniga deegaan dhowr ayaa diyaar ku laha inay kuu nadiifiso naga soowac maanta lambarada brofaylka saaran mahadsanid